السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا بانديغا شاريبا شو oo aad uga barateen inaad ka dhageysataan barteena YouTube kan ku leenahay ee Shariba Show TV haddaad ku cusub tahay subscribe ka saaro si aan mar walba aad nala socotid oo aad uga xirnaatid barnaamijka Shariba Show TV haddaba qodobkeena caawa waxaan ku soo qaadanaynaa dowladda Turkiga oo aan hore u ogeyn in ay sameysay diyaaradihii ugu casrisanaa ee lala yaabay caalamka oo laga hortagi waayay ee dagaalkiina Nagorno-Karabakh ka qayb qaatay ayaa oo si weyn halkaas u xoreeyay ayaa haatan Turkiga waxay ku hawl jiraan in ay soo saaraan maraakiibta ugu casrisan uguna dagaalyahansan adduunka ee lagu duulaan tago ku soo dhawaada bandhiga Shariba Show dowladda Turkiga ayaa lagu wadaa in ay soo saarto sanadaha soo socda ama 10 sano ee soo socota maraakiibta ugu dagaalyahansan ama loo isticmaalo xagga badda ee lagu duulo kala kacaan diyaaradaha dagaalka iyo kuwa xaduqeeya halkaas oo lagu wado in maraakiibtaasi ay noqoto kuwa ka casrisan kuwa reer galbeedku hadda haystaan anagoo ogeyn in diyaaradaha aan duuliyaashu lahayn ee ugu casrisan adduunka oo Turkigu haatan leeyahay oo raadaraduna aysan qabanin oo meelo badan oo adduunka ah hadda iibsigoodu ka socdo iyadoo dowladaha Carabta iyo dowladda haatan laga baqayo dagaalka reer galbeedka NATO iyo ruushku ku dhexmaro ee Ukraine ay ka iibsatay diyaarado badan dowladda Ukraine oo qarashaad bilyan dollar ku kacaya uga iibsatay 20 diyaaradood oo nooca Turkiga uu sameeyay ah haddaba Turkiga ayaa wuxuu wadaa dhismaha maraakiib fara badan oo ah kuwa ugu caalimsan adduunka ee dagaalada ka qayb qaata hadday soo saarto shirkadahan Turkigu ay soo saaraan ee SSB iyo STM lagu magacaabo oo ku hawlan dhisida maraakiibtan ayaa lagu wadaa dowladda Turkiga inay noqoto quwadaha ugu waaweyn adduunka sida Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Shiinaha iyo wadankaasi iyo Shiinaha iyo markii laga reebay iyo wadamo fara badan oo caalamka haatan hubka ugu horeeya dowladda Turkiga ayaa ku hor talaabooyin fara badan oo qaadaysa si ay maraakiibtan degdeg ugu soo saarto iyadoo xaaladaha iyo marxaladaha adduunkuna haatan isii bedelayaan oo hadba adduunka ku ceeshayso cidii xoog badan dowladda Turkiga ayaa tan iyo intii madaxweyne Erdogan doortay ku talaabsatay talaabooyin fara badan oo dhinaca tiknoolajiyada caalamka ah iyadoo soo saartay hub kala duwan taangiyo diyaaradahan la qaban la yahay ee loo mar la yahay ee droniska ah ee caalamka oo dhan haatan uu gadashadooda ku daatay haddaba maraakiibtan la soo saarayo ayaa ah maraakiib gujsiyo iyo maraakiib diyaaradaha xambaara iyo kuwa gantaalada tuura ah kuwaasi oo raadaro aysan qaban lana soo weerari karin lehna qalab iska difaaca marka maraakiibta kale ama gantaalo kale lagu soo duqeeyo halkaad kala socotaan waa Shariba Show TV insha Allah biidnillaahi kariim barnaamijyo kale oo cusubna waa in soo sii deyn doonaa haddaad ku cusub tahayna subscribe ka saaro si aad mar walba aad inoo socotid